magaalada Buuhoodana waxaa laga dareemayaa saasaan colaadeed oo hor leh kadib markii ciidamada maamulka Somaliland ay habeennimadii xalay soo gaareen deegaanka Cigaag sidoo kalena degeen meel u dhaxaysa Hurufadhi iyo magaalada Cigaag waxaana xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka ka hadlay saraakiisha difaaca gobolka Cayn waana kan ugu horreeyay Korneyl Cabdifataax Kiistiid oo ka hadlaya arrimahaasi dhaqdhaqaaqyada ciidan waxaa keenay waxa weeyaan waa ciidanka ku soo duulay deegaanada Dhulbahante بدنا عن مكان دخلسني نبتجلينا وقالي وحنا برشلنا يدا قرطنا وقوعي بريك في أوكيشن كده نبتجلينا ما أنت بك عن شعب يجعل لمية وحنا لا دواجي بيجوا مرتقبنا وباقي يا سوماليلاند هداني وحيابها أيوة أنا سكرت يقول نقول كلام شرعي عبد الله سوماليلاند وإني كلام بحان لا ميجا لا يقطع بيشوفه جبنا وقت هذا المهم شو قولك عيو حاليا ورمني ما تحسكي علين ترتين وحاليا مني ما يغطي على لومي وإذا تجيب ما تحسكي علين ترتين وإذا تجيب على لومي عينو ميلو يسوي ذا تيسنو وحاليا قولك عين قول وحاليا قولك عين قول وأنا كقول يسندرنا إن شاء الله تعالى dhinaca kale ciidamada difaaca gobolka Cayn ayaa ku qulqulaya jiida hore ee deegaanka Hurufadhi waxaana halkaas isku horfadhiya ciidamada difaaca iyo kuwa maamulka Somaliland iyadoo ay suuragal tahay in xabadu afka ka baxdo maadaama laba ciidan halkaas isku horfadhiyaan duulaankan ciidamada taabacsan Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay deegaanka Cigaag ay gaareen 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Buuhoodle Cabdi Casiis aadan jaamac telefishinka caalamiga Kalsan Buuhoodle